munaasabad ballaaran oo lagu maamuusayay shahaadooyin la guddoonsiinayay madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda Somaliland safiirka Somaliland u fadhiya imaaraadka carabta iyo guddoomiyaha xisbiga UCID ayaa maanta lagu qabtay hotel Rays ee magaalada Boorama waxaana munaasabadaasi ujeedadeeda lagu sheegay in shakhsiyaadkaasi waxqabadkoodii ay ku maamuseen dhalinyaro kala duwan aqoonyahan kala duwan oo ka soo jeeda gobolkan Awdal inay shahaadooyin guddoonsiiyaan waxaana ay tilmaameen in loo baahan yahay qof kasta oo ka qayb qaata horumarinta adeegyada bulshada ee dalka Somaliland in waxa uu mutaystay lagu abaalmariyo waxaana munaasabadaasi ugu horeyntii ka warbixiyay hadallo soo dhaweynayo warbixina ka jeediyay Abdinaasir Buuni oo ku hadlayay aqoonyahanka kala duwan ee munaasabadaasi soo qabanqaabiyay waxaana uu ka waramay ujeedada keentay inay shahaadooyinkan guddoonsiyaan madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda Somaliland injineer Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ismaaciil Saylici safiirka Somaliland u fadhiya imaaraadka carabta baashe Awil Cumar iyo guddoomiyaha xisbiga UCID Faysal Cali Waraabe waxaana hadaladiisii ka mid ahaa xaflad munaasabad lagu guddoonsiinayo oo aqoonyahanka gobolka Awdal 3 qof oo ay u garteen dadka kolba loo arko inay qaranka kan ay ugu fadhiyaan sheegayna maadaama uu odaygii labaad ee dalka yahay madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda Somaliland Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ismaaciil Saylici iyo guddoomiyaha xisbiga mucaaradka UCID ahna musharaxa madaxweynaha doorashada 2017 injineer Faysal Cali Xuseen Cali Waraabe iyo ambassadorka dalka isutaga imaaraadka carabta inoo fadhiya ambassador baashe maayil ku-xigeenka degmada Boorama Cumar Ilaaye Jimcaale iyo barasaabka gobolka Awdal ayaa iyaguna waxay tilmaameen haddii aanu madaxweynuhu u ogolaanin dhalinyartu inay xilka qabtaan baashe kartidiisa iyo aqoontiisa maanta halkan aan ka wada qirayno meel aw ku practice gareeyo ama aw ku bandhigo qaratay inay abaal mariso cidda wax qabatay sidii hore loo sheegana man la yashkuru naas la yashkuru la qofka aan dadka u mahadcelin ilaahay uma mahadceliyo taasina waa goobnimo ay leeyihiin dadka deegaanka gobolka Awdal ee maanta governorkoodii ahay baashe Faysal iyo Saylicina sharaf bay u tahay markii ugu horeysay waxqabadkoodii Awdal laga qiro way harqaaday baa leeyahay sidoo kale waxa iyaguna halkaas ka hadlay Suldaan Ibrahim Jaamac Samatari Sheekh Cabdilaahi Sheekh Ali Jawhare Di Maxamuud Abdiweyne oo ku hadlayay magaca qurba jooga oo aynu garanay inaan dadkeena haldoorka ah ee inoo hawlgala ee qaranka wax u qabta inaan u mahadnaqno oo aan ku sharafno shahaado sharaf waa qiimo weyn saddexda la magac dhabay oo ugu horeeya madaxweyne ku-xigeenka Cabdiraxmaan injineer Faysal baashe Awil oo saddexduba lagu tilmaamay waxqabad ay leeyihiin runtii waan la qabaa waa sida weey nin walba qaybtiisu ka qaataa dalka waa la kala badsadaa ambassadorka waxa loo buunbuuninayaa waa inay yar oo xil ka weyn qabtay taasoo ku mutaystaa maanta faraha badan leh daadiisii waxqabadkiisa yar kala weyn waxa kaloo isaguna halkaas ka hadlay imaam Xaaji Axmed Miisaan horta wadada aad soo marteen maanta hay saacadaha soo socoteen ganacsatada ayaa bilowday madaxweynuhuna uu ku duceeyo madaxweynuhuna uu ku taageeray isaguna halkaas ka hadlay agaasimaha hay'adda horumarinta wadooyinka gobolka Awdal Yaasiin Qalile asarda kulley de madaxweynaha mustaqbalka insha Allah goortii Ilaahay ka dhigana waa mid de magaceega inuu diiwaanka sii gashado u baahan yahay nin kasta oo wadanka wax u qabtay in la xusaa way mudan tahay wasiiru dawlaha gaashaandhigga Mustafa Faarax Dhoore oo isna halkaas ka hadlay in ay siiyaan qofku wuxuu kasbado ay shahaadad ku guddoonsiyaan ee ay saddexda madaxweyne ku-xigeenka iyo guddoomiyaha Faysal Cali Waraabe baashe ay waxa qabadkooda ku suntaan ay ku siiyaan shahaado sharaf aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa aad iyo aadna waan u salaamayaa
wasiirka wasaaradda xidhiirka golayaasha jamhuuriyadda Soomaaliland Ali Xamuud Jibriil ayaa isaguna ka waramay aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa hooyaanka reer Awdal saddexda haliyay maanta halka ku xusan oo ugu horeeyo madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland la guddoonsiiyay shahaado sharafta safiirka Baasha Cawil iyo injineer Faysal Cali Waraabe gudoomiyaha xisbiga wicid aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa sida aad u guddoonsiiseen Faysal saaxiibkay laba kalmood baan leeyahay tawgili madaxweynaha waqtigiisii baa ka dhacay oo aniga ayaa samayn doona horta waxaan leeyahay Faysal madaxweynaha waqtigiisii gabadh interimkiisii labaad xaq buu lahaa isaga ayaa ka taraasulay ligasigiisii ama ajadihiisii ama wixii uu rabay inuu qabto isaga ayaa wuxuu u igmaday madaxweyne ku-xigeenkiisa iyo Muuse Biixi Cabdi oo musharaxa madaxweynaha waxaa iyaguna halkaas ka hadlay Baashe Cawil Cumar oo u mahadnaqay sida fiican ee loogu soo dhaweeyay magaalada Boorama iyo shahaadooyinka la guddoonsiiyay oo uu ku tilmaamay inay tahay mid ku dayasho mudan waxana uu tilmaamay in cid kasta oo wax qabata la iska rabtaago waxaa isaguna halkaas ka hadlay gudoomiyaha xisbiga wicid injineer Faysal Cali Xuseen runtii farxad weyn bayna noo tahay maanta inaanu idin ku nimaadno Boorame aniga iyo runtii xubnaha kale warka dalka inuu dalkoo dhan mid u siman yahay noqdo gobol kastaba qaybtiisa uu helo gobolkanina waa gobol ka mid ah gobollada Soomaaliland waliba kuwa ugu mudan ah lahana xadaarad soo jireen ah insha Allah tacaala ana way imanaysaa maalgashigaas lughaye iyo kaasay dhacba iyo mashaariic kale oo maalgashiya oo gobolka Boorama haday noqonayso iyo haday saylac noqonayso iyo haday magaalooyinka kale noqonayso lagu sameeyo waxaan aad ugu mahadnaqayaa akhyaarta ka soo qayb gashay xafladan iyo aqoon-yahaniinta soo qabaqaabiyay dadkeena waxa la oran jiray waa xabaal amaano markuu qofku dhinto way amaanaan baa la yidhi marka haddaynu baranay intuu qofku nool yahay wixii wanaagsan oo sheegay in la sheegana waa horumar aan ku talaabsanay maahin markii ugu horeysay ee shahaadooyin la guddoonsiiyo shakhsiyaad loo gartay inay yihiin kuwa muujiyay waxqabad munaasabadaasina waxaa ka qayb galay oo goobjoog ka ahaa gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha Somaliland Sharmaarke Dacar waa caafi TV-ga qaranka Somaliland Boorama